kulanti wanaagsan daawadayaal aawa waxay soo gashay in safiirka Soomaaliya ee jooga Kenya Maxamed Cali Americo in fureysta magaalada Roma asagoo labadan maalin soo gaaray caasimadda Talyaaniga ee Roma mudane aad u mahadsantahay waa ku salaamay salaam alaykum marka hore safiir ka waran socdaalka soo gaartay Talyaaniga muxuu ku saabsan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay waa socdaalkii aan ku soo gaaray magaalada Roma waxaan u imid caafimaad oo saa og tahay muddo bil ka hor ayaa waxaan galay accident oo gaaray shir gaari ku galay Nairobi waxa lagu daaweeyay 20 maalmood ka hor Roma hadda waxa soo laabtay caafimaad kaasoo lugtii insha Allah taala in lagu daaweeyo haddana daawadii way dhamaatay waan laaban doonaa Nairobi laaban doonaa insha Allah caafimaadka waa fiican yahay Soomaaliya caafimaadka aad u fiican yahay dhakhtarkana wuxuu yiri waa fiican tahay lugtiina insha Allah taala waa aad bay u soo bogsoonaysaa سافر سعودكادي هوري مركز سوغر تليانيga marka ku laabta Nairobi inkastoo shaqooyinka ay heersan u socdeen maxaa la kulantay maxaa isbedel aad aragtay markaan ku laabtay Nairobi safarkii hore halkaan ka tagay wax dhibaatay lama kulmin safaaradina dabcan waxa weeye inta maqnaana way socotay safaaradda waa institution shaqaalaha ka shaqeeyo inta maqnaana waxa jooga kusimo oo sii waday hooshina si fiican buu socotay marka laabtana meeshii ay joogtay aan ka sii waday marka alxamdulillah bacaan wax dhimi jira safaarada adiga aad ka safiirka agtada oo joogta Nairobi ku taalo adiga ka soo koob ma qof ka shaqeyso shaqaalaha safaaradda way badan yihiin ilaa ay waxay gaarayaan 18 qofood oo ah shaqaalaha Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabi ah sababtahay safaaradda Soomaaliya Nairobi waa safaaradaha waxaan dhigi karaa ugu waaweyn ama ugu muhiimsan safaaradaha dawladda milgaarka ugu furan adduunka safaaradda Soomaaliya ee Kenya gaar ahaan waxay muhiim u tahay waxa Kenya degan safaaradihii u qaabilsan Soomaaliya waxa degan qaramada midoobay xafiisyadooda hadda inkastoo hadda xafiiska Umbos oo u guuray Muqdisho laakiin badankooda wali waxay ka shaqeeyaan Nairobi waxa kale oo halka degan hay'adaha u qaabilsan mataqaana NGO-yada iyo humanitarian assistance ka u qaabilsan Soomaaliya waxay ka shaqeeyaan ay joogaan Nairobi waxa kale oo degan halkaas ganacsato badan arday badan Soomaaliyeed waxa kale oo ku yaalo xerada adduunka ugu weyn ee qaxootiga Eredab iyo Kakuma oo dad kor u dhaafaya Soomaali ah 500 kun oo qofood ay ku nool yihiin marka safaaradda waxaan dhigi karnaa waa safaarad aad u muhiimsan anagana ilaa karaankeena howl fiican baan ka qabanaa fiisa qaarkood dawladda milgaarka Soomaaliya ay ku leeyihiin dibadaha ku leeyihiin waxa lagu shaqeeyaa hab iska u qabso ah hadda dadka aad ku shaqeeyo iyo wax siiya anaga shaqaalaha safaaradda dabcan dawladda milgaarka lacag badan ma jirto laakiin wixii la helo ayaan iyo dawladda safaaradda wixii aan helno ayaan siinaa shaqaalaha intee loo qiyaas karaa Soomaalida ku nool Nairobi Soomaalida ku dhaqan Nairobi aad bay u badan yihiin laakiin hadda inkastoo aan la xisaabin ama la diiwaan gelin waxaan filayaa inay 300 kun kor u dhaafayaan anaga hadda safaaradda Soomaaliyeed Kenya waxaa noo qorshaysan oo aan codsi u dirnay dawladda Kenya inaan sameeyno diiwaan gelin taasoo aan rabno in dadka Soomaaliyeed ku dhaqan waddanka Kenya laga bilaabo Nairobi Mombasa Eldoret magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida degan yihiin inaan dadka diiwaan gelino taas oo macnaheedu tahay inaan ogaano dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka Kenya kadibna la siiyo mataqaana ID lagu ogaado saa og tahay wadamada kale oo safaaradaha ka furan yihiin Mareykanka iyo Canada iyo wadamada kale dadkooda markay yimaadaan wadamadaas kale ama Kenya yimaadaan way diiwaan geliyaan iska qoraan safaaradahooda si haddii dib ku dhaco ama ay dib la kulmaan safaaradda ogaato meesha degan yihiin iyo say yihiin anaga insha Allah taala taas waan ku tala jirnaa dawladda Kenya oo disanay codsigeena hadda waxay u dhameysay week hore ayaan weydiiyay jawaabtii waxay dhaheen waa la soo process in la ogolaado aad jecel haduu leeyahay safir waxaan ayaamaan mar hore isdaba joog maqal jirnay in ay falal xumo oo ku saabsan kufsiga loo geysto qaxootiga ku jiraan xerooyinka arintaas ma jirtaa haddii jirteen maxaa ka wadeen runta waaye dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah ee ku dhagan xeryaha qaxootiga dhibaatooyin aad u fara badan ay la kulmaan gaar ahaan haweenka andhaho way jireen sanad ka hor aan jeclahay inay ahayd in la kufsaday gabdho Soomaaliyeed oo xeryaha ku jira anaga markaa maqalnay dabcan waan mataqaanaa waxaan u dacwoonay dawladda Kenya anaga u mareyno wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxaan ka dacwoonay qaramada midoobay qaybta u qaabilsan qaxootiga UNHCR
u sheegnay dad masaakiin ah oo kasoo qaxay mataqaanaa gobolada ay dhibaatooyinka jiraan gobolada ay mataqaanaa dadka nabdiidka ay gacanta ku hayaan in ayagoo soo socday maalmo badan kusoo jiray jidka oo dhib la soo kulmay oo 20 maalmood ka badan soo socday in markii yimaadaan Kenya dhexdeeda ama xiriiqa qaxootiga yimaadaan in hadda lagu kafsado inay tahay wax qalad ah oo bini'aadamada ku xun dadkii waxa geesan la soo baaro baaritaan la sameeyay 2 qof ayaa soo xiray haddana maxkamad ayaa la saari doonaa waxaana ka codsan dowladda Kenya in dadkaas lagu xukumo dambiga ugu weyn kuwa kale hadda raadinayna in la soo helo dhibaatada kuma filan kaliya kufsigaas dadka dhibaatooyin fara badan la kulmaan maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray amni darro oo ka dhacay xiriiqa qaxootiga anaga aad baa ugu xumaanay waxaa jiray in lagu afduubay dad dhaqaatiir iyo hay-adaha u shaqeynayay dadkaasoo meesha u jooga inay gacan siiyaan Soomaalida dhibaataysan anaga taas waxay keentay in hay-adihii meesha ka shaqeynayna ay markii la afduubay kuwaas ay kala baxaan dhaqaatiirtooda taasna ay dib u keentay Soomaalida qaxootiga caruurta haweenka u baahan caafimaadka waraaqa u qornay anagoo dhehena marka hore aad baan ugu xunnahay dhibka la geystay oo la afduubay dadkaas laakiin aan ka sii xunnahay in calaamadahooda eegan dadkaas faraha badan 500 kun oo qof Soomaaliya dib ku dhaco marka haddeertaan 2 wiil ka hor dhaqaatiirta qaar baa ku laabtay laakiin weli waxaan sii codsanaa oo aan ku adkeynaa in kulli ku laabtaan ma jira barnaamij lagu talagalay in dib loogu celiyo qaxootiga Soomaaliyeed degnaadii hore kasoo kaxeen way jiraan saa ogtahay ciidamada dowladda ku meel gaarka ah iyadoo gacan ka helayso ciidamada waddanka Kenya waxay xoreeyeen dhul fara badan oo xuduud Kenya Soomaaliya ah dhanka Soomaaliya ah ayay xoreeyeen dhulkaas hadda dowladda ku meel gaarka ay gacanta ku haysa hay-adaha qaramada midoobay wadamada deeqaha bixiyo dowladda ku meel gaarka waxay ka codsatay in si degdeg ah loo geeyo kaalmo loo geeyo dadka la caawimo dadka Soomaaliyeedna dabcan aniga markaan tago bil kasta mar baan tagaa waxay markii dhahan waxaan rabnaa inaan nabad helno waxaan rabnaa inaan guriyeen ku laabano dabcan haddii aanan mataqaanaa kaalmo helin kuma laaban karaan dadka qaxootiga ahna sharciga adduunka wuxuu leeyahay qasab laguma celin karo waa in ay iyaga ogol yihiin ay volunteer yihiin laakiin inta aragnay hadda oo badankooda waxay cusubeen inay ku laabtaan marka qasab laguma celinaa laakiin qofkii raali ka ah waa celinaa laakiin waxaa ka muhiimsan oo dowladda ay weydiistay in hay-adaha gargaarka ay marka hore gacan siiyaan guryaha degi lahayeen iyo raashin iyo meesha ay geeyaan maadaama mataqaana la soo gaaray ay ka dhiman tahay muddo 5 bilood ay ka dhiman tahay xilliga kala guurka dowladda ku meel gaarka Soomaaliya ka safiir ahaan muqul tahay in roadmap la dhameetiri karo oo loo soo laawo doono dowladda Soomaaliya loo dhan yahay warunta waa arrin xasaasi waaye waa su'aal mataqaana loo baahan yahay waa aaminsanahay in xilliga kala guurka roadmapka la dhameetiri doono dowladda ku meel gaarka ah aad iyo aad bay isugu mashquulisay guddi baa la sameeyey oo hadda ka shaqeynayo waxaan aaminsanahay haddii la yidhaahdo in ayagoo hooshooda wataan inay sameyn doonaan in lagu guulaysan doono roadmapkana la dhameystiri doono haddii la yidhaahdo intaan dhammaanin agost sanadka haddii la yidhaahdo mudane Soomaalida degan Nairobi ama Kenya waxay aad bay ku amaaneen wax qabadkaada iyo wadannimadaada su-aashu waxay tahay waa kuma Maxamed Al America runta waaye Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii kaliya maaha laakiin Soomaalida ku dhaqan aan dhihi karaa Kenya oo dhan waa wada shaqeynaa anaga hadda safaaradda Soomaaliyeed markii la abuuray waxyaabihii ugu horreeyay aan sameynay waxaa ka mid ahayd waxaa jira waddanka Kenya in dhib ay kala kulmaan mataqaanaa xagga sharciyada xagga booliiska xiriirka ka dhaxeeyay Soomaalida iyo dowladda Kenya oo aad u xumaa anaga waxaa sameynay inaan isku keeno inaan xiriirka wanaajino in dadka ay la shaqeeyaan dowladda in anagana aan dadka wacyigelin fara badan siino aan u sheegno waxyaabaha xaq u leeyihiin haddaan usoo qaado example dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo lacagta faraha badan geliyey Kenya waxay xaq u leeyihiin inay sharci xiraan Soomaalida marka hore ma garanaynin mana aqoonin waa u sheegnay qofka ardayga oo lacag bixinayo oo iskuul dhiganayo wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo viisaha ama sharciga la student visa in la siiyo waa u sheegnay qofka qaxootiga asna xaq u leeyahay inuu helo waqtiga qaxootiga marka arrimahaas aan kala hadalnay oo dadaalnay ayagana waxaan ugu mahadcelinayaa oo gacan weyn naga siiyeen dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga Soomaaliyeed
كنا الحريق وحتيجا داب يكاكما مرة بدن أي كان نكسيان العقب بدن بأرويان دري أرويان مثلا والله حتيجا أيو كلمين مرك إيجان أدي بقوم هتعلني كلمة أي سيا والله سمعنا دلوقتي سن كل دلوقتي سن حريق وحتيجا سعد سفير مركز سجارتي مجال روما عاصمة الإيطالية يا كوكسو دوي يات لكولنتي markaan safarkayga hore iyo safarkan labaaba waxaan igu soo dhaweeyay safaaradda Soomaaliyeed ee hadda halkan Roma safiirka yahay ambassador Nuur Xasan Xuseen Racade iyo shaqaalihiisa safarka hore iyo safarkanba waxaan kaloo soo dhaweeyay oo isbitaalka ugu soo booqday jaalada Soomaaliyeed ee degan magaalada Roma iyo jaalada kale iyadana nooga timid France oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo soo dhaweynta fiican ay ugu soo dhaweeyeen intaan joogay waddanka Talyaaniga ودبنتي ما دام أجوت كان تليانة أجوت عافمات أجوت عافمات على كسيو محا السوجد اللي سومال جوت نيروبي أم جود أهان سومال كنا الدنيا وكل إجزاء إنكو داونا وما سنت هاي الدعاء أنا آمين إلهي أجر كاسي أدينا dadka Soomaaliyeed wadan Kenya gudihiisa jooga ama hada kuwa Rome jooga ama dibadiisaba waxaan kula dadaalmi lahaa in ay walaalo dhibaataysan gacan siiyaan waxaa dadka Soomaaliyeed farbadad Soomaali ayaa dhibaataysan gaar ahaan kuwa ku jira xiriirka qaxootiga Soomaali waxaa la rabaa in Soomaali kala gacan siiso waa in la gacan siinaa is caawinaa dhaqan iyo diin waajib ayaan saaran in la iskaalmeeno sa ogtahay raashinka hadda la keeno oo loo soo marsiyo UNHCR-ka ama UN-ka ama hay'adaha loo soo marsiyo waxa la soo qaaday lacag laga soo qaaday waa dad ajnabi ah ha ahaadaan mataqaanaa dibadaha laga keenay marka annaga waxaa na saaran waajib inaan waalihina caawino gacan siino ayagana aad bay uga farxayaan aniga hadda marar badan raashin ama laga soo ururiyay Soomaalida degan maxaa la dhahaa Kenya soo dhiibeen ama kuwa dibadda soo dhiibeen markii aan geeyo aan dhaho raashinkan waxaa soo dhiibay dad Soomaaliyeed dadka wajigooda farxadda iyo ka muuqanaysa waa yaabaysaa si ugu farxayaan kaliya marka taas ayaa ku adkeyn lahaa in la is caawino hadduu la helaado ودنا عاد ورئيسي اللي يجي سفير الصوماليا وفدي أمريكا كينيا محمد الأمريكي وأنا جنتا محمد روبرتو يونيفرسال تي في روما